السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته نبض داوديال السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض داوديال شينا كحر برنامج كعقورة كسر هذا حقيه جدا بيجي عبارة باسنة كله في الديان كالصومالية تاسو سامين كل دونا يكرر شيء طبعا حوالي بدن أيا كوبا باي أنت عبارة أنا يجرتي شدوا كلا دد بدن أيا الشيء يعني نرشوا ذا يسوف وصارتي حالة بلا تنمتي قدرت xogahan helinay hadana soo gaaray ayaa sheegay ilaa 6 qof inta naloo xaqiijiyay goobjoogayaal aanu la hadalay ilaa 6 qof inay ku dhinteen sidoo kale xoolo aad u badanna ay ku baabeen dad kalena ay soo food saartay nolol darro baasan oo dabcan isugu jirta caafimaad iyo cunadii iyo wixii dhaqanayeen dadka dhaafay gobolada ugu daran waa gobolka Daawo Liibaan iyo Afdheer oo kamid ah deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan ayaa garabkayga fadhiyo barnaamijkeega la qayb qaadanaya xogihii ugu dambeeyay indhaha ku ay Cabdiraxmaan maxaa ugu dambeeyay xogta abaarta ku dhufatay deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolada aynu sheegnay bismillaahir rahmaanir rahiim waa khatar abaartu waxaan xidhiidha la sameeyay مسؤولين أما دad ku nool goboladaas iyaga ah sida Afdheer Liibaan iyo Daawo hada daqiiqada ka hor baan la hadlayay Daawo xaaladuna way ka sii daraysaa ilaa hadda warbaahinta caalamku 6 ruux way dhimashada gudbiyeen laakiin 6 way ka badan tahay dhowr iyo 20 qof waa gaadhaysa dadka dhintay inta la og yahay biyuhu waxay ku tiirsanaayeen gobolka Daawo la yiraahdo wabiyada dhaxmara dawladdu uma sameeynin biyo dhaan kale ceelal uma qodna riig ma laha biyo kaliin kala ha sheegin waa biyaha dabiiciga ah ee wabiga mara wabigi wuu go'ay hago ay hadana dhooxiisa yaa la qodqodan jiray oo intii laasas iyo wax laga qoto yaa la waxay ismi jiray iyadoo sidii ay tahay dhooxi waxa soo galay wabiga qoliyo la yiraahdo OLF ola oo jabhad hubaysan oo oromada waxa isdagaalay Booran iyo qabiilada kale Soomaalida meesha deganaa dagaalkii jabhadii baa toos soo gashay guud ahaanba qabiilkii Soomaalida ahaa ama Garra ahaa ama Mareexaan ahaa ama maxay ahaa aaga ama Gurra ahaa aaga deganaa waa la saaray wabigi waa laga saaray kii tagana waa la dili nimashadu ilaa 7 yey maraysaa 3 dhana iyo 4 dhana waxa saas la sheegaya marka dhimashadaas waa dagaal iyadoo waa dagaal abaarta ma dadkii dhimashadaas dagaalkii markay ku bilowday ay dibadiina u baxeen inay biyo soo doonan karin waa inay oonkii u dhintaan meel kale oo ay sagaara wixii dhigato dal dhigato oo gobolkaas uu leeyahay ma jirto degmooyinka ugu daran ee wabigan ganaana ku tiirsanaa biyihiisa waxay ahaayeen Hudad Qadaadumo Mubaarak intaas oo degmo ah degmooyinka laga saaray wabiga weeyaan dadkii ka cabi jiray biyo ila biyoodkiisu ay ahaayeen wabiga waa la saaray kor baa loo bixiyay dushii haday u baxaana hadii ruuxii laba dhimasho waa inuu mid xabada ku dhinto iyo inuu mid oon iyo gaaja ku dhinto dadkii haweenkii uurka lahaa nafaqa darre wada dhinteen hay'adihii maxaan ku dhahay caalamiga ahay wixii waxba ma geynayaan dawladii iyadii baa la dagaalamayso qarinaysay shacabku ka oranayaan oo warde wasiirada ka soo jeeda gobolkaas iyo madaxda gobolada iyo degmooyinku maxay qabanayaan markaad ku tiraahdo de ma aragno hay'adi iyo maxaa waxay idin qabta hay'ad inay gaari yar oo calan leh ay uun meesha la marta mooyaan oo muraayado dalacan yihiin ay suuq u furan yahay mooyaan koobiya anama siiso dadkii xaalad waxay ku sugan yihiin aad iyo aad looga dayrinayo wad arki kartaa 25 ruux ku dhawaad meel ay u dhimatay gaaji iyo oon xoolo ma jiraan xoolo ha sheegin waxay ku leeyeen war bal baabaan qashinkoodii uun wax reerka ama yaani de muska noo dhaafiya yaan ku rayn lahayn taasi waa gobolka la yiraahdo Daawo dadkuna aad ka ugu dhinteen waxaana sababtay gobolka Liibaan waa maratogan iyo togan way maraan gobolada laakiin dadkani nabad bay kaga cabayaan togiyo intay qotaan uu guray leene ay qotaan bay maaxsadaan oo xubba nafta lagu celceliyaa kuwa laakiin colaad baa u dheeraatay saameynta ugu badan waa colaada xabada ah lagu soo saaray waxa la sheegay xalay waxa la dhacay oo oromadu ay dhacday 500 oo neef oo geel ah
oo geelu waa xoolaha adag ee geed adayga ah oo geelahoo dhalinyaro hayse Soomaali lahayd yaa la dhacay ciyaalkii lahaana intay saseen bay ka carareen ciyaalkii la joogay way ka carareen dhowr dhaawac hadda degmooyinka la gaarsiiyay la leeyahay oo dagaal istaagay ma aha laakiin waa dagaal de shacab la ugaarsanaya oo kii wabiga ku soo dhaadhacay meelaha biyaha soo aada oo xabad lagu dhufanayo waxa la dagaalamayana waa jabhad abaar iyo colba isugu darsamay reer daawo gurmad bay u baahan yihiin abaar iyo col meesha ugu xumeed baa isugu darsamay liibaan baa timid liibaan wali dhimasho dad ma jirto laakiin xoolo kuma hadhin afdheer sidoo kale waxa la soo ururiyay dadkii tuulooyinkii degmooyinkii wixii laga soo ururiyay Hargeysa la isugu keenay waxa la keenay 400 oo kun mise 200 oo kun oo qof yaa la keenay magaalada Hargeysa waxa loo dhisay buulal yar yar oo bajaaj taagan la eg baa loo dhisay dadkii noocaas ahaa biyo in meesha lagu qoodiyo wax lagu kariyo ee dawladdu ugu tala gashay qoladii maamulka ahayd ee maamulka Hargeysa yaa daraad waxay ku yidheen waan idin diiwaan gelinaynaa boona aad wax ku cuntaana ama account baan idin furaynaa wax la idinku soo tuurtuuro lacag kun bir qof kasta ha bixiyo waa 400 kun oo qoys lacagta idinku iska bixiyay ku yidheen dadka abaarta ku dhacay dadkii sakaraadka ay meesha markuu odayba wuxuu leeyahay haddii aan kun helayo meeshan ma imaadeen buulkanba ma soo galeen haddaan kun helayo ani waxa uu laga yaabaa hunguri xumada qolada maamulka inay sawirteen waa 400 kun oo qof ala qof hadduu kun bixiyo yani 4 milyan inay ka helayaan bay u yar sawirteen oo hunguri xumo iyo damiir xumo iyo la jecla daro isgalay weeye dadkii oo qaylinaya mudaharaaday waxaan arkay loo soo diray muuqaalo يعني ده واحد مودي وحون لو قياس بنك عرفه من آدم كمخلوقات كماشة تاجن يوم القيامة هي بدموديس أو ماشة لكن أنت مال في رب بدن تاي أو ده عذر ركض لان كران أو هدنا آن يا عبيد نيوصل عدوياتي وقدرت هي مجال استاد كالسكوسو أوريين أي كنا ولاين سيدو كلا عبارته قبل هذا كلاوي ساميسي فيقنا سيدو كله ودقمويك يتولويك يا لي دادها laga soo qoro ma boqol ruux mise konton ruux isla sidaas oo kala hadana waxay yireen akooma bangi shabeelaan idin furaynaa lacag la yiraahdo 650 bixiya qofkiiba hadana ma qofkiiba yani halkii qoysba hadana waxa la yiri qoyskiiba dadkii mustawaqa loo sameeyay ruux kasta 200 mustawaqada lagu sameeyo iyo 200 sawirlihii iyo wixii ha bixi adu lacagtii kun ka ahayd iyana isku tagtay dadkii hadana dib looga lacagaysanaya sakaraadka iyagu wixiga aha markan iyo duruufta adag ee qalafsan iyo saddexda gobol haw daraatay ku sugan yihiin waan gartay marka laga yimaado abaarta oo si balaaran ugu dhufatay gobolada dadka meesha ku urunay maamulka gobolka ma heer deegaanba amarku wuxuu ka yimid xukuumadda heer deegaan inuu markii hore siyaade wax wanaajin uu ahaa meel lagu ururiyo wax loo kariyo oo balda intii wax loo dhiman lahaa jiilaalada intii laga baxayo in dadkaas baahidooda meel lagu hayo iyo qorshuhu u ekaa laakiin qolihii fuliya liidada gobolada ahaa yaa suuro xumaynayo haddee meeshaas inay wax ka dayaan hunguri ah ma aysan ahayn ee qolihii fulinayay inay dadkooda yani ay u sameeyaan yani tabarruc ay ugu shaqeeyaan oo yani ay iska wax u qabso uga dhigaan oo damqasho yeeshaan bay ahayd inay ruux hatta hadii loo sameeyo akoon inay dawladdu bixiso qarashka akoonka lagu furayo haduu dhowr boqol yahay inay dawladdu bixiso ruuxa magaciisa dawladda wax gurmado ma laga hayaa hadii ay noqoto in dadkaasi biyo dhaamin iyo waxyaabo kale la gaarsiiyo wax talaabo iyo wax hadal toona dadka ka soo jeeday mas'uuliyiinta gobolada hadii noqoto iyo madaxweynaha iyo maamulka madaxda ama ragga mas'uuliyiinta ee hadda gobolka Liibaan ku sugnaan la hadlay way ila yaabeen markaan ku yiri dawladdu ma idin soo gurmatay hal booyada biyo dhaan aan ugu filan lahayd baydeen oo dad badan ay ku soo kaban lahaayeen hal dawladda oo waxaas raashin ama baad ama biyo wuxuu noola yimid ma hayna way la yaabay hay'adaha weydiiyo ku yiri waxa hay'adii ordi jiray WFP markuu roobku yimaado
dadka garab ordi jiray qamadida qalalan bixin jiray maxaa ku dhacay maxaa jira gaari yar oo hay'adeed oo calan laho meel intuu ka yimid meel ku socda oo aad moodo inuu yacni de attendance buuxinayo mooyaane wax kaloon aragnaay ma jiro dadkuna ma ayna dhinteen haddii dawladii ay u gurmanayso ama hay'adii ay u gurmanayso waxaan ogsoonahay deegaankeena kulli colada ayaa iska jiro oromada aan idhaahday anfarta iyo soomaalida xaggan galbeedka city ugu badnaa xaggan markaynu ka hadlayno xagga nabadgelyada daawo oo kale dabcan sida aad sheegtayba colada iska jiro jabhada oromada iyo dadka shacabka ah oo haddii ay noqoto qaabka biyaha loo kala cabayo abaartu haba saameynteeda ha lahaatee arrimahaasi xagga ammaanka ciidamada ma joogaan miya deegaanka ciidamadooda iyo waxa ciidamada aan leenahay waa kuwa city ka dagaalama gobolka city degmooyin xuduudeed la qaatay oo maxaan ku dhahay qalin lagu qaatay oo mar hore la bixiyay baa jira degma kuwa ka waaweyn oo la qaato deegaanka ku jiraana way jiraan inta xad leenahay meelan dhul laynaga haysan tulli guuleedan Allah ka yeelay oo jinacsanidan Allah ka yeelay oo mayumluq Allah ka yeelay oo kuwan intii magaalooyinkii laga soo tagay biyihii togi cilada ay ka cabiyeen laga qaatay hadda daawo Allah ka yeelay ma jirto meelaha kale dagaal ka dhacayo fara badan oo dawladdu ay energy ku bixinayso arki maysid siyaasad inay ku jirtaan moodaa inay sitina galbeedkeeda lagu dagaalamo oo energy inta la eg la geliyo degmooyin ka sokayo jigjiga u muuqda jigjiga la daba maray waxaan soo xusuustay markaan hadda dagaalkan dawladdu siiyay gurmanaysa xagga u ordaysi aan arkay iyo harooriis degmo ku dhagan oo harooriis badabadeeda ah tuulo ku dhagan oo degmo laga dhigay markaan arkay nin waxaa jira intuu dhaweysa qaato qolyahan dalxiisayaasha baashi dhaweysada ahayd qalabkiibu saa u gashay diiradiibu kurka gashaday libaax buu bankaa ka raadinaya gaarigan uu fuushan yahayna dabadiisa libaax baa fadhiya soo dibba muuna feerinin marka xaggaas iyo maxaan ku dhahay xuduudaha caasimada ka fogee gobolada ee ama daawo oo kale ama maxaan ku dhahay Shinilo oo kale way fog yihiin caasimadii baa la daba marayo qalin iyo xoog wax lagu qaatay baa la daba qaatay marka dagaaladu waxaan ka wadaa halkan dagaal ee canfar ah ee xuduud ah baa dadku ay aad u og yihiin inta aynu xad la wadaagno Itoobiya oo dhan qoomiyad kasta ha ahaatee meelaan dhul lagu muransanayn dagaal ka soconin ma jiro waxay ahayd meeshii la oran jiray Guradaamo leh meeshii waxa ogeedo dhimashii ka dhacaysay degmada maleeshiyaadkeedii iyo qabiilkii deganaa bas ah ruux uma dhaafin hal qabaal intuu ka tagay jigjiga muuna aadin ciidan kale oo gaaran iska daa hudad iyo mubaarak iyo qadaadumo hadda waa xabad baa laga saaray togi oo dhan oo dagaal baa ka socda mooyaala sidoo kale dagaal baa ka socda tan hadda mina ee qubi ka shaysa ilaa ma yumuluqo dagaal baa ka socda tulu guuleed waatan kama istaago haddana wax kor u qaadi iyo wax dawladdu ka qayb qaadan iyo ma ay jiraan marka ma fahmin kulay sababta ay u kala waxaysan yihiin marka dhulka aynu leenahay xadka aynu leenahay Itoobiya qoomiyadaheeda kala gadisan meel aan qori la isla hor fadhiin ma jirto وطاي داود يالنتا سيان كساف ميرنا برنامج xog waran oo aanu diirada ku saaranay dabcan nabaarta baahsan ee ka jirta deegaanka Soomaalida taasoo dad iyo dunyaba galaafatay oo dabcan sida ay wararku inagu soo gaarayaan amaba gobjoogayaal aanu la hadlayno xaqiijiyeen aanan wax gurmad xagga dawladda ka helin balse dadkaasi Ilaahay uu gurmad ka sugaya roobkii oo isaguna muddadiisii aan wali la gaadhin ayaa sababaha abaartan ku dhufatay goboladaas daawo iyo liibaan iyo afdheer ayaa u daran walow ay qaybo kale oo gobolada ka mid ah sida Shabeello oo degmooyin iyo gobolada kale oo iyaga laftooda ay saameyn ku dhalatay laakiin ay saameyntu kala daran tahay ay iyada lafteedu ka jirto Abdiraxmaan ayaa igala qayb qaadanaya barnaamijka xigeynta aan ku kulmi doono waxaan leenahay sida iyo nabadgelyo